waxay Puntland goosatay muddooyinkii u dambeeyay inay iyada isku tashato aysan noqonin dad caaliq ah oo meel iska fadhiyo oo weligood sugaa iyagoo la kaashanaya awoodooda gudaha iyo qurbo joogtooda dibadda jirta labadaba waxaa ugu muhiimsan wadadii ceel daahir iyo Ceerigaabo oo runtii ah astaan dhaqaale astaan horumar bulsho ah oo runtii wajigeedii labaad aan rajaynayno haddii ilaahay inuu goordhow si rasmi u bilowdo laakiin waxaan rabaa inaan dadka u sheego in dhowaan ay yimaadeen qayb ka mid ah daamurkii wadadaas looga shaqayn lahaa dib u habeyntii shirkadu ay shaqada ku bilaabi lahaydna ay hadda diyaar garowooda ku jirto aan rajaynayno markaan wajiga labaad dhowaan la daah furana aan u soo bandhigi doona dhaqaalaha ay hadda dawladdu u hayso iyo waxa hadda lagu tashanayo iyo waxa aan ka rabno guud ahaan dadweynaha reer Puntland ama ha joogaan gudaha ama dibadda ha joogaan iyo cid kasta oo ama Soomaali ama ajnabi ah oo runtii khayr jecel oo rabto horumarkaas inay gacan ka geysato sidoo kaleeto waxaa muddadan qabsoomay wadada isku xirta Garow iyo Boosaaso oo sidaas oo kaleeto muddo dheer aan dhowreyn inay cid kaleeto naga caawiso annagoo weli ka rajo dhigin oo mashaariic badan oo aan malaynayna inay hirgalaan aan sugayno duruufaha COVID-19 oo keenay darteed oo hakad uu ku dhacay waxaa laakiin dawladdu si isku tashiya ay u sameysay in badan aad ka aragteen social media 40 kilomitir ugu dhibka badnayd yalho ka soo bilaabanayo oo dadku badankiisa meermeer ku yaqaano wada khatar ah runtii 40 kilomitir si qurux badan bay u dhamaatay waxaa hadda daraasad ku jira dadka magaalada ay jidka ku safra aad u yaqaanay marka yalha laga tago oo dhinaca ilaa iyo dhinaca Boosal aad u dureera oo laagi la maro iyadana dayactir inagu sameeyo sidoo kale dhinaca ilaa iyo kala bayr iyadana in dayactir lagu sameeyo ayaa hadda daraasadeeda jidkaas maadaama magaalada Boosaaso ay tahay magaalada dhaqaalaha dekada ugu muhiimsan hadda ay ku taalo waa magaalo sea levelka mararka qaarkood aba ka hooseysa leedo oo aad u hooseysa buuraleyna ku teedsan marka Boosaaso laga soo baxo ilaa iyo kala bayr oo 60 kilomitir waa meesha buuraha golis ku xeendaaban magaalada Boosaaso looga soo baxayo waa meel khatar ah oo runtii haddii uu ku dhaco jidkaasi ay magaalada iyo isku socodka uu xirmayo marka laga tago dalka intiisa kaleeto oo meelo buurale way jiraan laakiin banaanku uu badan yahay togog inkastoo ay leeyihiin laakiin siyaabo kale oo looga xeeladaysan karo ayaa jira marka meelo kooban laga tago laakiin intaas waa inta khatarta ugu weyn aan u aragnay oo aan u baahannahay inaan si degdeg wax u qabanno shaqadaas runtii waxay noqotay shaqo meel fiican marayso oo aan rajaynayno inay lagu guuleysto sidoo kaleeto waxaa mar dhow iyadana dayactir gacanta lagu hayaa oo bishaan gudaheeda iyadana socdo sidaad la socotaan wadada magaalada Garowe dhex marta oo runtii iyadana ah halbowle kaliya marka laga tago bilicda magaalada oo wadadii dheerayd oo mainstreamka magaalada dhex mari jirtay oo muddo dayacnayd ayaa dawladda hoose oo runtii shaqadeedu ay tahay waxay ku guuleysatay inay arrimahaas iyadana ay wax weyn ka qabato sidoo kaleeto waxyaabaha aan rajaynayno inay iyaguna dhowaan bilowdaan oo aan sida hordhaca ugu sheegayno waxaa ka mid ah wadada Gaalkacyo iyo Garowe u dhaxaysa oo ilaa ay xarfo ah oo hadda ka hor hakad uu ku dhacay iyadana waxaa ka bilowday hordhacii daraasadii lagu celin lahaa wixii ka khaldamay company ugu horeeyay ayaa tender lagu siiyay kii gacanta ku qaban lahaana dhowaan ayaa la sameyn doonaa lacagihiisii iyo muranno ku dhex jiray oo ku xeernaa hakad ku dhacay arrintaasna xal badan baa inteeda badan laga gaaray waxaan rajaynaynaa iyaduna inay dhowaan bilaaban doonto sidoo kale mashruuc ayaa hadda gabagaba ah oo kasoo bilaaban doona xarfo ilaa Gaalkacyo isagana meel fiican aan rajaynayno inuu maro